alxamdulillaah. Markasta oo aan dareemo culays maaliyadeed iyo arrimahayga inay cakirmayaan, waxaan bilaabaa akhrinta istikfaarta. Isla maalintaasna waxaan dareemaa faraj si toos ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ee ku xiran channelkeena iyo dhammaan walaalaha cusub ee nagu soo biiri doono. Jazaakumullaahu khayran waqtiga aad nagu bixinaysaan. aan ku wada salino nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. aan badina saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo xusidiisa si ilaahay noogu saliyo oo noogu naxariisto. walaalaha qaaliga ee ducada naga soo dalbanayo, dhammaan walaalaha nagala soo hadlay WhatsApp-ka iyo qaybta commentiga, ilaahay waxaan uga baryaynaa muraadkooda oo macsalaheen meel dhow inuu soo dhigo. ilaahay waxaan uga baryaynaa kurbada inuu ugu bedelo fudeed, culays inuu fudeed ugu bedelo, kurbadana faraj ugu bedelo, murugtana uu farxad ugu bedelo. اللهم آمين. dhammaan walaalaha guur la'aanta ee guur xalaal Allah siiyo, inta awlaad raadis awlaad baari Allah siiyo, inta shaqo la'aan shaqo khayr qabta Allah siiyo, inta deemaysan deenta Allah ka gudo, inta sharciyada ay ka soo daaheen ka xiran yihiin sharciyadooda Allah u soo sahlo. dhammaan ibnaha awlaad ay ka xanuunsan yihiin, walaalaha awlaad ay ka xanuunsan yihiin, awlaada Allah u caafiyo. inta gaalada ay ka qaadatay ama ay faraha kula jirto arintoodana ilaahay gaalada ka qabto. umuuraheen adduun iyo aakhira Allah islaaxiyo walaalaha qaaliga. aamiin. ducada aan soo wada qorno, aan u soo wada duceyno dhammaan walaalaha kurbeysan, annagana culayskii kurbada Allah naga haayo. aamiin. aan badino xuska ilaahay iyo dikrigiisa. ma aha kaliya markuu kurbana qabsato ama culays uu naqabsado ama arrimaha ay naga cakiran inaan ilaahay xaggiisa soo cararno. markasta quraanka, tasbiixda, taxmiida, tahliisha, xawqalada, saliga nabiga iyo istikfaarta aan ku dadaalno. mawduuceena maanta sida aad ku soo aragteen waa fadliga laga arkay istikfaarta iyo faa'iidadooda. qisaskan waxaa ka sheekeynayo walaalo kala duwan ee tajrubeeyay oo tijaabiyay oo sameeyay oo dhaqan galiyay istikfaarta. istikfaarta faa'iidooyinka iyo nimcooyinka laga helo way fara badan yihiin. waxaa ugu horeeya oo faa'iidada iyo waxa laga faa'iidaa inuu qofka istikfaarsado waa inuu ilaahay u hoggaansamo oo ajiibo oo ilaahay isku dhuldhigo oo ilaahay u noqdo. ilaahay inuu u noqdo ayuu ka faa'iidayaa qofka oo amarka ilaahay uu hoggaansamo. sababaha kale oo laga faa'iidayo istikfaarta waxaa waaye irsaaqada in ilaahay kugu barakeeyo, jannada in lagu galo, in ilaahay dambi dhaaf uu kugu siiyo, dunuubtaada iyo khadaayadaada uu ilaahay kaaga masaxo, in darajooyinkaaga iyo ajarkaaga kor loo qaado. waxaa kaleento inay cuquubooyinka iyo dhibaatooyinka ka hor istaagto, naftaada inay ku daahiriso, in awlaad ilaahay uu kugu siiyo, in guur iyo nimco ka soo daahday in ilaahay uu kugu siiyo. waxaa kaleento lagu helaa caafimaadka iyo awoodda iyo maxay aheeday kalsoonidaba. markaan niraahno istikfaarta ma aha wax la soo koobi karo faa'iidooyinkeeda. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuuna leeyahay faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أدوارا إلى آخر الآيات. أيضا سورنا الله سبحانه وتعالى وحوق شيكينا فوائد نمعوينك برواقض لغيها استغفارتا. رسول كان صلى الله عليه وسلم وحقوليه حديث كان ويقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. qofka istikfaarta joogteeyo ilaahay cariiri walbeento makhraj iyo meel oo kaga furdaamiyo ayuu siiyaa. murug walbeentana iyo hami walbeentana faraj iyo furtaan iyo fatax ayuu ilaahay ka siinayaa. ilaahayna wuxuu ka arsaaqayaa qofka meel uusan ka filanaynin. ugu galna qisaska laga arkay istikfaarta iyo fawaa'ideeda. qofkan ugu horeeya wuxuu leeyahay alxamdulillaah, ilaahay yaa mahad iska leh. markasta inta aan dareemo culays maaliyadeed inuu ihaysto, waxaan bilaabaa inaan akhriyo istikfaarta. markaan wado istikfaarta oo aan daldalo si niyada waliba umuurahayga isku cakarnaay oo dhan way ii furdaansamaan.
waxaanan helaa isla maalintaas arintii iyo culeyskii maaliyadeedu i haystay in ilaahay si mubaashir oo toos ilaahay arinteyda iigu xaliyo oo culeyskii aan ka tabanayay isla maalintaas gudaheeda ayaan ku helaa. Nimcadaas oo dhan waxaan ku helay ayuu leeyahay iyo guushaas istighfaarta. Waxayna ii noqotay ayuu dhahay istighfaarta hub aan ku dagaal galo oo aan rabo meelaha culus iyo jiqda aan la gali karin markii la gaaro in aan ay furdaamin iyo ii noqoto. Alxamdulillaah. qofkan kalena wuxuu leeyahay istighfaarta waxay noqotay mid i dareensiiso sacaado iyo inaan quwadda nafsi aan dareemo. ilaahayna waxa uu igu fududeeyaa adduunyadeedii khidmaadkayga adduunyada. Alxamdulillaah, cizo iyo karaamo iyo hididiilooyin fara badan ayaan ka helay ayuu leeyahay istighfaarta. Alxamdulillaah, ilaahay yaa mahad iska leh. qisadan kalena waxay leedahay waxaan kaga caafimaaday sixir ihaye muddo 8 sano ah. waxa uu leeyahay wallaahi waxaan kaga caafimaaday sixir aan la xanuunsanaa muddo 8 sano ah. markii aan joogtay kadib 15 maalin oo aan akhrinayay istighfaarta. 15 kaas maalin waxaan akhriyay ayuu dhahay nus milyan mar ayaan akhriyay oo macnaheedu tahay 500 oo kun oo istighfaar ayuu akhriyay 15 kaas bari. ilaahayna wuu ku caafiyay. markii aan ka caafimaaday oo muddo joogay ayuu wuxuu dhahay waxaan bilaabay haddana 6 bilood kadib ayaan waxaan bilaabay si aan u ogaado qofkii i sixray inaan akhriyo suuratul baqara. alxamdulillaah, wayna soo muuqatay ayuu dhahay qofkii i sixray iyo arrimihii uu iga rabay waan uga caafimaaday. ilaahay fadligiisa ayaan ku caafimaaday. thumma istighfaarta iyo suuratul baqara markii aan xanuunsanay kadib muddo 8 sano ah. sidan kalena qofkan waxa uu ku leeyahay alxamdulillaah, ilaahay yaa mahad iska leh. markastana waa idin la socdaa. wuxuu dhahay waxaan bilaabay istighfaarta aniga oo arrimo igu cuslay u niyeysanayo iyo gabadhayda iyo zoojkeeda oo kala didsanay ama isdagaashanay oo dhexdooda taalay. alxamdulillaah, markii aan muddo yar waday istighfaarta reerkii way isku noqdeen wayna heshiiyeen. duco iyo istighfaar duco badan oo u akhriyay iyo istighfaartii kadib reerkooda wuu u islaaxay. arrimo kale intan ilaahay wuu igu aslaaxiyay. istighfaarta ayay leedahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga aqbalo kulligeena adinkii anagaba acmaasho wanaagsan. hana iloobina inaan isku soo duceyno adinkana sidoo kale ayaan idinkugu duceynayaa ayay leedahay. qofkani kale waxa uu leeyahay alxamdulillaah, waxaan wadaa muddo inaan istighfaarsado ilaahay aan xuso. maalintiina waxaan gaarsiiyaa ilaa 6,000 oo istighfaar ah. ilaahayna arrimihii wuu ii taysiiriyay ama ii fududeeyay. amar kasteento oo aan u baahdane waxaan u niyeystaa istighfaarta waxayna iigu imaataa ilbiriqsi ama wax yar gudaheedaba arrimahayga way ii furdaansamaan oo ii fududaadaan. alxamdulillaah, ilaahay yaa mahad iska leh. thumma nimcadaasi barwaaqadaas oo dhan waxaan ku helay ayay leedahay istighfaarta. qisaskeeni maanta intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. aad iyo aadna waad u mahadsantihiin dhammaan walaalaha qaaliga na daawado oo waqtigooda noo soo huro. inaan khayrka iyo wanaagga kusoo leexato waa nimco ilaahay iyo fadligiisa qof kastana iskama heli karo. alxamdulillaah, ilaahay yaa mahad iskale ayaan leenahay na haleeshiisiiyey khayrka inaan soo gudbino. qof kastana khayrka iskama soo gudbin karo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa tawfiiq iyo sugnaan inuu siiyo. gafkeena iyo geerideena ilaahay ma kulmiyo. ilaahay ma kulmiyo. toobatan nasuuxatan qabla almowt allahna siiyo. kelmada afkeena ugu dambaysan allah ka dhigo shahaadada an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada rasuulullah allah ka dhigo. xaqa allah nagu sugo iyo wanaaga iyo khayrka. allahumma yaa muqallib alquluub thabbit quluubana calaa diinik. allahumma yaa muqallib alquluub quluubana calaa daacatik. allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna alitibaaca. allahumma arina albaadil baadil warzuqna alitinaaba. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي قفكيني قيردين وكل ميو. إلهي وحان ويدي سنينا وقتدين إباهدين إنو إلهي بن آدم كقريو قعانتين نتيس الرئيس وكريو. كربضن إلهي فضاد نوغ بدلو. عليسكن إلهي فضاد نوغ بدلو. كربض فرحد نوغ بدلو. الرميهن إيهانجين إلهي نوغ هرقليو أيضا مع سلهين. آمين يا ربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو إذن إن شاء الله كرقادة لايك إيو شير إيو سبسكرايب إيو وحي رأينا حاجة كومنتي وسوقر إن شاء الله.
kuna aanan badina saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam kuna soo qor insha Allah halkan hada soo gaartay si aan u ogaado bal inay jiraan walaalo fiidiyowadana la dhameysto oo halkan soo gaaro insha Allah qof walba oo halkan soo gaara soo qoro اللهم صل وسلم على نبينا محمد أمسيقى ير صلى الله عليه وسلم سوقرو بين الرحمن آدي يوم حسنتين إن شاء الله وحنا كجت يا دردارنك إن يعني اسكو دردارن حسك إلهي يا خير وناجا وهي أن صحي وهي كأهاتي من الله وهي أن خلدين وهي كأهاتي نفتي شهيدان كيا إلهي وحنا كبرينا إنه خاتم خير نوغديو إن شاء الله waxaan idin leeyahay astawdicukum Allah alladhi la yudii'u wadaa'i'uhu ilaahay aan idinkaga tagay asaga ayaa wixii lagu amaansado oo looga tago aanan dayacaynin Allah idin xifdiyo meel kastoo aad joogtiin Allah aan idin barakeeyo Allah idin sharfo Allah idin ciseeyo dhammaan aamiin ducada la iska mareebay kulligeena Allah na wada sharfo maalintii oo dhan waxaan ku celcelin jiray istighfaarta waliba aniga oo gaarsiinayo 10,000 oo istighfaar ah noloshayda oo dhan waxay noqotay caafimaad irsaaqad waasaca deganaan xasilooni buuq la'aan iyo cibaadadii inaan jeclaaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ah ee nagu xiranaya dhammaan walaalaha cusub ee nagu soo biiri doono dhammaan walaalaha ducada naga soo codsaday ilaahay waxaan ugu baryaynaa muraadkooda oo macsi lahayn inuu ilaahay siiyo muraadkooda meel lagu soo dhigo qurbadoodan farxad ugu bedelo biidni raxmaan soo dhawaada walaalaha qaaliga ah khayrka jecel alxamdulillaah dheh ilaahay hadduu ku soo waafajiyay inaad fiidiyowga khayrka aad daawato qof walba isagama soo leexan karo oo iskama daawan karo khayrka iyo wanaagga man yuridillaahu khayran yufaqihu fiddiin qofku ilaahay khayr la doonana wuxuu u fahansiiyaa diinta oo khayrkana wuu jeclaysiiyaa aan ku wada salina nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam allahumma salli wa sallim wa baarik calaa nabiyina maxamed walaalaha qaaliga ilaahay waxaan uga baryaynaa inta kurbaysan inuu ilaahay kurbada ka dulqaado walaalaha guur la'aanta guur khayr qaba Allah u sahlo inta awlaad haysan awlaad baar Allah siiyo inta khilaafaadka dhex yaalaan khilaafaadkooda Allah xalliyo dhammaan walaalaha deemaysan deenta Allah ka gudo inta shaqo la'aan shaqo Allah sii khayr qabto inta xabsiyada ku jirtan xabsiyada Allah ka soo deebiyo idin raxmaan muraadkeena oo maxsalayn Allah na siiyo aamiinteeni aamiinta malaa'ikta Allah kulbi bogtadeen iyo baahideena bini aadanka ilaahay ma tusiyo gacanteena tii sareysa Allah ka yeelo aan ku wada salina nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam soo dhawaada walaalaha qaaliga waa qisaskii laga arkay xuska ilaahay khayrka iyo wanaaga waliba uu badnaatay istighfaarta marka qof walaalan wuxuu soo weydiiyay istighfaarta sida loogu dhawaaqay waa soo weydiiyay istighfaarta sida loogu dhawaaqay waana sidan astaghfirullah qaaf iyo qooyin ay kala yihiin marka waa qooyinka insha Allah astaghfirullah wa astaghfirullah daldo qaaf ay noqonay oo dhunta kasoo bixi astaghfirullah wa marka insha Allah sis ina uga jaahil baxdeena rajeynaya waxa aan saxnayne waxay ka aatay min Allah wixii aan gafayna waxay ka aatay naftayda iyo sheedaan ilaahayna khayrkana waafajiyo istawaabta aan ugu galna markay qisaska qisada ugu horeysa istighfaarta waxa soo gudbinaysa gabadhan waxay leedahay khayr iyo barako fara badan ilaahay idin siiyo ilaahayna idin barakeeyo waxaan aad ugu xanuunsan jiray ay dhahday caadada bisha waxay ka wadaa dhiig caadada ay u imaado haweenka bil walbeento aad ayaan ugu xanuunsan jiray dawo kasta waa qaadan jiray ilaa cirbada ayaan gaari jiray ay dhahday bishan oo aan joogteeyay istighfaarta markaan idinka helay dhiirigelin fara badan oo aan istighfaarta gaarsiiyay ilaa 10,000 alxamdulillaah wax xanuun ah kuma dareemin ayay leedahay waxaan aniga dadka kalena ku dhiirigelinaa inay istighfaarta ayagana joogteeyaan waxaan idinka bartay ayay dhahday inaan jeclaado istighfaarta alxamdulillaah istighfaarta waxay dhahday waxay ii furtay albaabka daacada khayrka ayay jeclaysiisay alxamdulillaah ilaahuna dambi dhaaf waxay leedahay Allah ku dambi dhaafo cimrigaadana Allah dheereeyo ajarkaagana Allah ku siiyo cilmigaagana cilmi naafic oo waxtar Allah ka dhiga ayay leedahay marka gabadhaasi qisadeedii oo kooban waxa waa istighfaarta waxay ku heshay in ilaahay ku caafiyay oo caadadii bilaha oo ku xanuunsan jirtay
ilaahay yani si sahlan oo saqiran oo u caafiyey alxamdulilah ayay leedahay kheyrkan waa ku jeclaatay istikfaarta marka waa kaasaa walaalaha qaaliga qisaska istikfaarta laga helay ma aha wax yaroo lasoo koobi karo subxaan allah waad ku dhex wareereysaa oo ku dhex yani yabaaleysaa alxamdulilah iimaankaagana wuu kuugu saa-idaya markastoo aa qisaskaas aragtid cibro iyo waxaa kusii qaadaysaa iimaan ilaahay iimaankeen hanoo quweeye alxamdulilah qofkan wuxuu leeyahay istikfaarta waxaan ku helay caafimaad risiq iyo cibaadooyinka oo igu fududaada ayuu leeyahay alxamdulilah waxa uu leeyahay wallaahi kalaamkiina waa saxiix 100% macnaha wuxuu ka wadaa waxyaabaha aad ka sheegaysaan istikfaarta waa sax 100% waxa uu leeyahay waxaan u maleynayaa istikfaarta in loo soo dejiyay in adoomaha ilaahay arrimahooda ugu saqiro waanan aaminsanahay waxaan ku celceliyay istikfaarta ilaa 10 goor ayaan ku celcelin jiray ayuu dhahay umuurtayda oo dhan waxay noqotay oo dhahay midba iska sahlan oo saqiran caafimaad miya irsaaqad miya cibaadadii oo ka kaslaami jiray oo caajiska iga saarnaan jiray oo aan joogtay miya waxa uu dhahay alxamdulilah yani waxa uu leeyahay waxa aan dareemayo shucuurta aan dareemayo ma aha wax la soo koobi karo nimcadaas iyo fadligaas iyo barwaaqadaas iyo kheyrkaas oo dhan waxaan ku gaaray ayuu leeyahay istikfaarta alxamdulilah dadana waxa ay ka hadlaysaa suuratul baqara iyo quraan akhrinta iyo qiyaamul leylka fadliga iyo faa'iidada ay leedahay waxa uu leeyahay qofkani wallaahi ilaahay baan ku dhaartay waxaan ahaa inaan qiyaamul leylka aan istaagayo anigoo ku akhrinayo waliba suuratul baqara umuurta reerkeygana waxay ahayd mid isku cakiran hanti la'aan saboolnimo shaqo la'aan dhalinyaradii reerka oo dhan oo wada fadhiso aan sameeyay ayuu leeyahay qiyaamul leylkii akhrintii aan ku dhex akhrinayo suuratul baqara waxaan kaloo sameyn jiray ayuu dhahay inaan yani quraanka aan dhameeyo labada isbuucba mar ayaan quraanka dhameyn jiray ayuu dhahay bishii 2 mar ayuu quraanka dhameyn jiray ilaahay markii dambe wuxuu nagu arsaaqay ayuu dhahay markaan muddo joogtay arintaasi alxamdulilah arintii oo reerkeyga dhan way sahlamaatay shaqo mushaaraad guryo hanti alaabtii yani reerkii fuqarada ahay guriga gateen aan gadanay ayuu dhahay wuxuu dhahay alaab cusub aan soo dhiganay alxamdulilah dhalinyaradii shaqo ay wada heleen alxamdulilah ilaahay wuxuu dhahay umuuraheen oo dhan sahlan saqiran ayuu nooga dhigay nimcadaas iyo fadligaas iyo barwaaqadaasna waxaan ku helnay ayuu dhahay suuratul baqara salaatul leylkeegi iyo quraan akhrintii oo aan badiyay taqillaa yaj'al lahu makhraja ayu allah subhanahu wa ta'ala leh qofki ilaahay yani ka cabsado ilaahay wuxuu u sameynayaa makhraj iyo manfad oo culayska iyo kurbada iyo adduunyada mashaakilkeeda oo uga baxo marka waa ka wiilka markuu kheyrka joogtay oo quraanka joogtay alla bariga joogtay oo salaatul leylka u joogtay reerkii oo dhanba ilaahay amuurahooda wuu sahlay alxamdulilah marka ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa khaatimadooda kheyrka ilaahay ugu khatimina noqono ilaahay waxaan weydiisanaynaa gafkeena iyo geerideena inuu kulminin ilaahay bugtadeena iyo baahideena bini aadanka ma tusiyo gacanteena tii sareysa allah ka dhigo ilaahay dambiyadeena iyo khadaayageena allah naga cafiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa dambigeena kii hor iyo kii dambe mid yar mid weyn iyo mid ognaay mid ogeyn inuu ilaahay noo dambi dhaafo acmaasha yaran sameysanaynana ilaahay noogu naxariisto oo noogu dambi dhaafo ayaan weydiisanaynaa waalidiinteena allah cafiyo waalidiintooda intii nool allah siiyo cimri caafimaad barakale madaxooda allah raajiyo intii dhimatayna ilaahay u naxariisto qubuurtoodan allah uga dhigo roodata min riyaadil janna annagana ilaahay kheyrka ha nagu sugo allahumma yaa muqallibal quluub thabbit quluubana calaa diinik اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي waxaan weydiisanaynaa meesha aan ka qurbaysana ilaahay inuu naga fiido qurbadeyna culeyskeena inuu fudeed ugu bedelo murugteena farxad ilaahay noogu bedelo aamiin ya rabbi aamiinteena aamiinta malaa'ikta allah kulmiyo arladan ka duceynay samada allah ka aqbalo ducada insha Allah walaalaha qaaliga fiidiyada in like saartaan ayaan rajeynayaa oo si email dheer u gaaraan subscribe kana channelka ku xirta
sii share gareey walaalaha kale u sii diray insha Allah si aan khayr wada wadaagno aan ku wada salino nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam meel kasto aan joogno waxa naga mudan yahay inaan xusno nabiga sallallahu alayhi wasallam meel kasto aad ku maqasho saliga nabigana waa inaad tiraahdaa اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعاد كسل الساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفتي نبأ وحن كل دردار ميا الله كعبسيقة إن شاء الله سداس إيو أمانة الله وحان كشقينا شركة دير مشاركة عن كقاتنا ومفلنين نينك مدحدا أما مسؤول كا شركة دنا وحو أهانين أدك waxaan jeclaystay inaan ka tago shirkadaas oo aan doonto shirkad kale oo ka wanaagsan walaashay ayaa waxa igula talisay inaan bilaabo istighfaarta markaan istighfaarta muddo waday waxaan helay shirkad balaaran oo mushaarkeeda iyo levelkeedaba aan ku qanacsanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ee nagu xiran iyo walaalaha cusub ee nagu soo biiri doonaba jazaakumullahu khayr ayaan idin leeyahay waqtiga aad soo geliseen Allah idinka jasa iyo abaalmariyo dhammaan walaalaha muraad kale ee ducooyinka soo weydiistay Ilaahay waxaan ugu baryaynaa in muraadkooda oo macsileen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu siiyo meeshay ka oomayhiin Ilaahay ka ontiro walaalaha xabsiyada ku jira Allah ka soo deey inta deemaysan Allah ka gudo inta deemaysan deemaha Allah ka gud inta shaqaraadiska shaqa khayr qabta Allah siiyo qof walba meesha uu ka kurbaysan yahay ka fiido kurbada biidni raxmaan inta awlaad raadis awlaad baar Allah siiyo inta guur rabta guur xalaal Allah siiyo insha Allah dhammaan muraadkeena macsilheen Allah na siiyo walaalaha qaaliga soo dhawaada aan ku wada salina nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كو إلهي الرمي وكسلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وأن قد قلنا عبان كينا وقصص كالغارك استغفارته إيا فوائد كذا فضل كذا عجائب كذا حسك إلهي دمان حسك إلهي هدي هان لها حوق لذا سورة البقرة استغفارته كل إسلام النبي إن شاء الله قصة أوريسو وأنا تسوق بينينه وحوليه ولالكني السلام عليكم سيدين إذا كوجو شيء أما إذا كوجو سوق بيا قابك يعني أبدا شيء استغفار تيحوق على ذا النرشي ذا وحوليه هاي وحندي جرمالنتي طبعا كن أو استغفار يحوق على إسكجرتو كدب وحو هاي إلهي وحن ويديسان جري يعني مرادك aan leeyahay ayaan ku duceysan jiray wixii iga maqan Ilaahu markii aan dhaho kun oo istighfaar ah iyo xooqale isku jirto markii aan iraado ayaan waxaan dhihi jiray Ilaahayo muraad hebel ii sahal Ilaahay ma baryo si kasto oo u weyntahay muraadkaas aan leeyahay iyo arrimaha si kasto oo mustaxiil u yihiin waan heli jiray isla markaasiba ayuu dhahay wuxuu akhrin jiray 10 kun oo istighfaar iyo xooqale isku jirto kadib ducada uu rabo iyo arinta uu rabo Ilaahay ka bari jiray si kasto ay mustaxiil u tahay iyo si kasto ay culus tahay ducadaas Ilaahay wuu aqbali jiray arintiisana Ilaahay wuu fulin jiray subhanallah gabadhani waxay leedahay waxaan idinkaga sheekeynayaa qisadeeda aniga iyo istighfaarta waxaan ka shaqeyn jiray shirkad yar mushaarkeedana ma ahayn midaan ku qanacsanahay oo wuxuu ahaa mushaar yar mudiirkeyga wuxuu ahaa nin adag oo aad u xun kadib waxaa aniga isla shaqeyn jirnay yiraahdo saaxiibadii ayaa shaqadii ka tagtay yiraahdo shaqadii waxaan ku noqday keligay kadib waxay dhahday waxaan jeclaystay inaan ka shaqeeyo يعني xafiisyada dawladda oo inaan ka shaqeeyo ka shaqo bilaabo ayaan jeclaystay ay dhahday kadib markii aan jeclaystay inaan xafiiska dawladda aan ka shaqeeyo marka waxay dhahday shahaadooyin dad shahaado sare haystay bas ayaa ka shaqeyn karay oo aniga shahaadadeyda ma ahayn shahaado saas u sii weyn oo levelkeyga aad uma sareynin ay dhahday waa walwalaayay kadib walaashaydii ayaa waxa ii sheegtay ay dhahday in istighfaarta aan joogteeyo istighfaarta waxay igu tiri dhahday walaashay wax kasto ay suurtagal ka dhigi kartaa ee istighfaartan bilow
istighfaarta ayaan bilaabay. Kadib waxay dhahday waraaqadihii ayaan waxaan u gudbistay ay dhahday wasaaradda oo dowladda ayaan u gudbistay. Kadib waxay dhahday aniga iyo 14 gabdhood oo gabdhahaasi oo wada jaamiciyiin oo shahaadooyin sare haysto ayaa wada shahaadadii warqadaheena gudbisanay ay dhahday. Waxay tiri marka aniga waan walwalaay oo waxaan islahay dhahday dadkaas 14kaas qof yaa ma laga dhex dooran doono oo waan walwalaay. waxay dhahday istighfaarti maanan joogteen oo waan sii waday oo waan joogteenayo oo waan akhrinayay leel iyo habeen iyo maalin iyo xil iyo saacad walba. kadib waxaa lagu dhawaaqay ay dhahday inaan ka mid noqdo dadkii shaqada loo qaatay. alxamdulillaah waxay ahayd shaqo aad iyo aad maasha Allah iigu mushaar fiican. waan ka reestay ay dhahday ninkii mudiirka ahaa ee adadka. alxamdulillaah nimcadaas oo dhan waxaan ku helay ay dhahday istighfaarta. ilaahay yaa mahad iska leh. istighfaartana waxay dhahday waa shay aad iyo aad cajiib u ah. qisadan kalena waxaa ka sheekeynayso gabar waxa ay leedahay waxaan jeclaa inaan guursado oo ilaahay ugu arsaaqo ibn al-xalaal wiil wanaagsan ah. kadib aan yeesho guri aan ii khaas ah awlaad aan dhalo. waxay dhahday sanadaha waxay socdaan oo isburaan oo da'deedana sii kormarto oo aan noqdo qof weynaaday oo mana jirin qof isoo doonanayo ama igala hadlaba arrin gurma jirin ayay dhahday. anigana waxay dhahday murug iyo culays ayaan dareemi jiray markasteento aan arko gabar iga yar oo la soo doonanayo oo la guursaday ama ciyaal dhashay ama yacni adi un reer yeelatay marka arko aad ayaan u kurboon jiray ayay dhahday. markii dambe waxay dhahday waxaan maqlay fawaa'ida istighfaarta ay leedahay ayadoo laga sheekeynayo waliba oo sheekh oo ka sheekeynayo aayadahan oo akhrinayo. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. intaas marka aan maqlay waxay dhahday waxaan joogteeyay istighfaarta aniga oo yacni ka dhigtay wasiilo iyo quwad iyo awood anoo ka dhiganay istighfaarta oo ilaahayna ku kalsoon ayaan waday ay dhahday istighfaarta oo maanan kala joojinaynin har iyo habeen afkeygana waxaan ku waday istighfaarta. waxaan kaleento oo akhrinay ay dhahday suuratul baqara aniga oo niyeysanay inaan ku helo guur wanaagsan. wallaahi waxay tiri markii aan suuratul baqara iyo istighfaartii isku waday waxaan helay ay dhahday hadda ninkii aan jeclaa oo yacni jecel gooni ma ahaanay ninkii yacni ay rajeynaysay shakhsiyadiisi iyo noociisi waliba yacni sifooyinkii ay rabtay oo ahaa nin oo yacni wanaagsan oo xalaal oo maxaa la dhahaye reer shaqo oo diinta xaggeeda ku tacalluqa waxyaabo badan iyo sifooyin badan ay ka rabtay ayay ka heshay. waxay dhahday ninka ayaan hadda guursaday alxamdulillaah waxaanan ahay bishii 3aad uur ayaan leeyahay walina waxay dhahday mana joojinin istighfaar. waxaan hadda yacni kaloo u niyeysanayaa oo aan wadaa ay dhahday inaan shaqo fiican ku helo. ilaahayna waxaan ka rajeynayaa gabar walba oo guurka ka xariman iyo wiil walba oo guurka ka xariman inuu guur xalaal ilaahay ku arsaaqo iyo awlaad baari ah. alxamdulillaah anigana waxay dhahday ilaahay rajadii aan sanado badan iyo muddo badan aan ku fikirayo wuxuu igu siiyey markii aan joogteeyay istighfaarta iyo akhrinta suuratul baqara. alxamdulillaah ayay leedahay. qsigani waxa uu leeyahay ma sanado ka hor ma ahayn qof yaqaano faa'iidada iyo fadliga ay leedahay istighfaarta ilaa aan ka arkay fiidiyoo ka sheekeynayo istighfaarta. waxaan bilaabay inaan joogteeyo istighfaarta. istighfaarta waxa ay badashay noloshaydii kulligeeda. waxaan ahaa qof daalo oo waxbarashada kaslaan ka ah jismiyan iyo maskaxiyan iyo caqliyanba yacni qof aad u daalo oo tacab fara badan dareemaya ayaan ahaa mar walbeento. waxay dhahday yacni darajooyinkeyga waxay ahaayeen darajooyin aad u liito xagga waxbarashada laakiin marka aan istighfaarta bilaabay kadib wax kasta waxay ii noqdeen waxyaabo sahlan fadliga ilaahay iyo istighfaarta. alxamdulillaah hadda waxay dhahday yacni
darajooyinkeyga waxa ay noqdeen darajooyin aad iyo aad u sareeyo. Daalkii farada badnaay waan ka reestay, nafsi ahaan iyo jismi ahaan waxaan ahaa qof aad u liito, waan ka roonaaday ayay leedahay. Amuurteydii yoomiga iyo maalinlaha ahayd iyo mashaakilaadkeygii yacni isdaba jooga ah alxamdulillaah waxaan uga roonaaday oo ii xaqiijiyey hadafyadeydii iyo horumaradeydii oo dhan istighfaarta. alxamdulillaah mushkilooyinkii dhan way iga yaraadeen, ilaahay ayaa mahadoo dhan u sugnaatay. Istighfaarta waxa uu leeyahay waxay leedahay waa kanzi aad iyo aad u weyn. qofkii raba inuu ku noolaado nolol cusub oo raaxo leh oo yacni horumar leh oo tadawur leh waa inuu ku noolaadaa nolosha istighfaarta oo uu joogteeyaa istighfaarta ayuu leeyahay. qaaliga intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa qisaskii laga arkay istighfaarta. haddaan nidhaahno waan wadaynaa yacni ma ah kuwo la soo koobi karo. insha allah hadda maanta qisooyinkeena waxaan kusoo qaadanay xooqalada istighfaarta, suuratul baqara iyo ducada. marka insha allah maalin walba xuska ilaahay noocu ahaadaba nooc ayaan soo qaadan doonaa. idinkana waa mahadsantihiin. insha allah ciwaanada aad danaynaysaan insha allah inaan kasoo hadlo waad iisoo qori kartiin. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu noo dambi dhaafo dhammaanteena. waxaan saxnayn waxay ka ahaatay min allah, wixii aan khaldan waxay ka ahaatay nafteyda iyo shaydaan. gafkeena iyo geerideena ilaahay ma kulmiyo. toobatan nasuuxatan qabla almowt allahna siiyo. mowtul fajac ah ilaahay ha naga najiyo, cadaabtana badankeena allah ka dhowro. waan idin salaamaya walaalaha qaaliga ah. waxaan idinkaga tagayaa xuska ilaahay iyo khayrka ayaan nafteyda iyo nafteenaba idin dardaarmaya. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu xaqa nagu sugo. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. dhammaan walaalaha muraadka leh muraadkooda macsileen allaha siiya insha allah. usoo wada duceeyey walaalaha ducada naga soo codsanayo insha allah. ilaahay in niyadooda u yeelo say jecelihiin khayr u yeelo. aan u wada duceyno walaalaheena insha allah. khayrka iyo wanaagga iyo xuska ilaahayna aan ku dadaalno mar walbeento fi saraa'i wa daraa. xilliga barwaaqada iyo xilliga dhibaatadaba aan khayrka iyo xuska ilaahay u cararno oo ku dadaalno. xilliga aan dhibaataysanahay kaliya ma ayna xag ilaahay u soo cararno, balse waa xilli kasteento inaan ilaahay xaggiisa u cararno. xilligaan barwaaqaysanahay oo nimcada aan ku dhex jirno waa in aan badinaa xuska ilaahay si nimcadaas ilaahay noogu taam yeelo. insha allah ilaahay waxaan weydiisanaynaa in acmaasheena uu ka dhigin riyaa iyo istutus. ilaahay waxaan weydiisanaynaa gafkeena iyo geerideena inuusan kulminin. allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa dunuubteena inuu noo dhaafo, mideedii hore tii dambe, midaa ognahay midaa ogeyn. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa waalidiinteena inuu naxariista adduun iyo aakharaba siiyo. inta nool caafimaad iyo cimri barako leh cibaado suuban allaha noo siiyo. madaxooda allaha noo raajiyo. intii dhimatayna qabrigooda allah u waasiciyo. allah uga dhigo rawdatan min riyaadil janna. asbaabaha ducada lagu aqbalana waxaa ka mid ah in waalidka oo loo duceeyo. ducadaada markaad duceysanaysid waa inaad ku dartaa salliga nabiga, waa inaad ku dartaa iyo inaad waalidkaaga duceysid. asbaabaha ducada lagu aqbalay ka mid tahay. marka insha allah aan ku wada salina nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam. arladan ka duceynee samada allah ka aqbalo. aamiinteena aamiinta malaa'igta allah kulmiyo. bugtadeena iyo baahideena bini'aadanka ilaahay ma tusiyo. gacanteena tii sareysa allah ka yeelo biidni raxmaan. aamiin yaa rabbi. waan idin salaamaya walaalaha qaaliga. astawdicukum allah alladii laa yudiicu wadaa'icu. aqrinta salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan ku helay maal fara badan. deyntii ayaa iga gudmatay. waxaanan ku helay guur wanaagsan. keedii oo laga soo sheegay cudurka kansarka waxa uu ilaahay ugu caafiyey markii ay akhrin jirtay habeen iyo maalinba istighfaarta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ee ku xiran channelkeena iyo dhammaan walaalaha cusub ee haddana soo booqan doona. waxaan rajeynayaa inaad ii wanaagsan tihiin dhammaantiina. waqtiga iyo timeka aadna geliseen ilaahay ajar iyo xasanaad iyo khayr ha idinkugu bedelo. ilaahay waxaan uga baryaa dhammaan walaalaha kurbeysan in ilaahay kurbada ka fiido.
inta xanuunsan caafiyo, inta xabsiyada ku jirta noo soo deeyo, inta deymaysan deymaha ka gudo, inta guur la-aan guur xalaal ilaahay ku arsaaqo, inta awlaad la-aan awlaad baariyaal oo siiyo Allah, inta shaqo la-aan shaqo khayr qabta Allah siiyo, inta waxbarashada iyo daraasada ku adag tahayna Allah u fududeeyo, inta sharciyada iyo ku culus yihiin sharciyadooda Allah u sahlo, inta gaalaha faraha kula jirto oo awlaadooda lagu fargalinayna ilaahay u xifdiyo awlaadoodii iyo ehelkoodaba. aamiin. ilaahay dhammaan umuuraheena hanoo sahlo. aamiinteeni aamiinta malaa'igtana Allah kulmiyo. arladan ka duceynay samada Allah ka aqbalo. aan ku wada sallino nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كو إلهي الرميو وإيمانك لغهليو قصلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سود واد ولا لها قالقة إن شاء الله وقصص كيني لغاركي حسك إلهي فإذوينك أولي حسك إلهي عجائبتا إن شاء الله أيان إذن السوء ذاك دونا. qisadan ugu horeysa maanta waxa ay ka hadlaysaa salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxa uu leeyahay wiilkani ilaahay waxa uu igu arsaaqay maal fara badan, waxa uu kale ilaahay igu arsaaqay guur, waxa uu ilaahay iga guday deyntii. kadib markii aan bilaabay ayuu dhahay ku sallinta nabiga sallallahu alayhi wasallam, waxaan bilaabi jiray ayuu dhahay waxaan soo kici jiray 9 habeenimo, macnaha 9 saac oo habeenimo ama 3 habeenimo sida qof walba u yaqaan waa saqbarka. waxa uu dhahay waxaan wadi jiray ilaa laga gaaro salaada subax. waxaan wadi jiray uu dhahay salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. salaada subax ayaan tukan jiray, quraan iyo inta akhrisan kara akhrisan jiray, kadib waan seexan jiray uu dhahay. waxaan ka soo kici jiray 3 subaxnimo ama 9 aroornimo ayaan ka soo kici jiray, duxadeyda ayaan tukan jiray, waana ka bilaabi jiray meeshaas ayuu dhahay ilaa laga gaaro habeenkii. siiqadaan isticmaali jirayna waxa ay tahay ayuu dhahay Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. maalintii oo dhan waxaan gaarsiin jiray ayuu dhahay 20,000 oo salliga nabiga ah. alxamdulillah. marka intaas joogteeyay waxaan ku helay ayuu dhahay maal, waxa ay gudmatay deyntii, waana ku guursaday alxamdulillah. nolosha waxay noqotay nolol barwaaqo ah. waxa ay ka sheekeynaysaa istighfaarta. waxaan nooga sheekeynayso gabar waxa ay leedahay istighfaarta waa shay aad iyo aad u weyn, mushkilad walbana way xalinaysaa. ilaah baan ku dhaartay wax laga dhiga ma jirto istighfaarta. waxayna dhahday waa mustaxiil inaan ka tago istighfaarta si kasta iyo cudurdaar walba oo haysto inaan istighfaarta ka tago mustaxiil ayay tahay oo wax oo suurtagaleyni waa macnaha weynaanteeda ka hadlaysaa. waxay leedahay waxaan idiin sheegayaa waxaa jirtay gabar kamid ah ehelkeyga oo wiilkeeda uu ka xanuunsanay, waliba lagu soo sheegay cudurka kansarka. waxaan uu joogay marxaladii ugu dambeysay ee afraad. dhakhaatiirta waxay u sheegeen inuusan lahayn wax rajo ah inuu caafimaado. waxay dhahday muddo kadib anigoo sidii u ogaay ayaan waxaan arkay wiilkii oo caafimaaday oo xaaladiisa iska fiican tahay. hooyadiis markii aan weydiiyay waxay dhahday wiilkaaga muxuu ku caafimaado waaba kii dhakhaatiirta ka dayrinayeen oo dawo uma hayn ay dhaheen muxuu ku fiicnaaday. markii aan weydiiyay waxay dhahday istighfaarta ayaan joogtay oo maalintii oo dhan waqtigeyga waxay dhahday intaan jiifo iyo intaan tukanayo ma ogiye intaan wax cunayo maahane inta kale waxaan akhrin jiray oo daldal jiray istighfaarta. alxamdulillah. ilaahay waa wax walba awoode ayay awoodda koonkan oo dhan u sugnaatay. waxa uu rabana waxa uu leeyahay kun fayakuun. kaliya waxa anaga naga xigto inaan Allah isku xirno oo aan barino. qofka ilaahay baryana marnaba ma qasaarayo. Allah subhanahu wa ta'ala asaga walba udcuuni astajib lakum. barya waan idin ajiibaya. marka insha Allah baryada ilaahay iyo xuska ilaahay aan ku dadaalno oo aan xariga ilaahay wada qabsano waan guuleysanaynaa. qisadan kale waxay ka hadlaysaa istighfaarta.
waxa uu leeyahay qofkan istighfaarta waxay ii fududeysay barashada culumta qur'aaniga ah waliba heerka sare ee jaamacadda. Ilaah ayaa mahad iska leh. siiqada aan akhrin jirayna waxa ay ahayd sayidul istighfaar oo ah allaahumma anta rabbii laa ilaaha illaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika mastatactu acuudu bika min shari maa sanactu abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidanbii faqfir lii fa innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta. markaan idin kala dhigdhigayo waxa waaye dad baa yacni sidaas tartiibta ku fahmaayo, dad waaweynaa nagu xiran, dad yacni akhrinta carabiga ee dhibaysaa nagu xiran. marka intay dhegta ka dhageystaan inay xifdiyaan waaye marka idin kala dhigdhigayo. inta taqaanana way taqaanaa oo baraarujin iyo xasuusin basay u noqonaysaa ayaga. waa ducadan sidan allaahumma anta rabbii laa ilaaha illaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika mastatactu acuudu bika min shari maa sanactu abuu'u laka binicmatika calaya wa abuu'u bidanbii faqfir lii fa innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta. siiqadaas ayuu ku celcelin jiray, wuxuuna ilaahay ugu fududeeyey daraasadii iyo waxbarashadii. marka nimcada istighfaarta maa wax la soo koobi karo. qisadan kalena waxay ka sheekeynaysaa istighfaarta. waxay leedahay marka aan bilaabay istighfaarta waxaan uga caafimaaday waswaaskii. waxaan ka waswaasi jiray oon ka cabsan jiray oo baqdin iiga jirtay dhimashada. mar walba waxaan isdhihi jiray haddaa dhimanaysaa, waa dhima rabtaa, waa dhimanee, maxaa qabatay, maxaa qabsatay, maxaa kuu qabsoomay. yacni maanta dhan wax igu soo noqnoqonaya qalbigayga dhimasho 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 dhimasho. kadib markii aan bilaabay istighfaarta waliba siiqada gaaban astaghfirullah aan isaga celcelin jiray, alxamdulillaah. waaba aniga oosan yacni maskaxdayda kusoo dhicinba maalin yacni arrinkii culayska igu ahaa waswaaska igu noqday ee ahaa inaan hadda dhimanayo alxamdulillaah. qisadan kalena waxa ay leedahay waxaa igu adkaay oo cariiri igu ahaay mushaarka. waxaan bilaabay inaan akhriyo istighfaarta marka aan ku celceliyey oon akhrin jiray mar walbeento oon jaanis helabo. mushaarkayga wuxuu ahaay ayuu dhahay 300 oo keliya. markii aan ku celceliyey istighfaarta mushaarkii waa la ii kordhiyey oo waxaa liiga dhigay 600 bil kasto. alxamdulillaah. markii aan horta istighfaarta aan akhrinayay ayuu dhahay ayaa waxaan ku riyooday habeenada ka mid aniga oo maal fara badan yacni aruurinayo oo helay. kadib waqti yar markii kasoo wareegatay waxaa la ii sheegay ayuu dhahay in mushaarka la ii kordhiyey 300 meeshuu ahay 600 iga dhigay. riyadeydina way furmatay oo waxay ku furmatay maalkii aruurinay in ay yacni mushaarka ii kordhay oo lacagteeda ii badatay. alxamdulillaah. nimcadaas iyo khayrkaasna ilaahay wuxuu igu siiyey ayuu leeyahay istighfaarta. qaaliga waxaan rajaynayaa insha Allah qisaskeena inaan inta ku ekeeyo maanta. ilaahay waxaan ka baryayaa in quluubteena uu khayrka jeclaysiiyo, khayrka uu nawaafajiyo, ku dhaqankiisa, ku tadabburkiisa iyo macaanka iyo wanaag uu xuska la leeyahay inaan dareeno. ilaahay waxaan ka baryaynaa gafkeena iyo geerideena inuusan kulminin, khaatumadeena uu khayr ilaahay ka dhigo, toobatan nasuuxatan qabla almawt ilaahayna siiyo, kelmada afkeen ugu dambeysana ay noqoto shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah. ilaahay khayrka iyo wanaagga ha nagu sugo. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. إلهي حلاوة الإيمان إلهنا درنسي وهنو أرساقه. أهل الاستغفار إلهنا قريو إلهنا ودر من المستغفرين. ولا لها قالق عن بذنه حسك إلهي خيرك قرآن أخرسك صدقة أعماش وناكسن ودن aan u tartanno oo aan ku dadaalno faafinteeda, sheegisteeda, ku dhaqankeeda. aanan badina saliga nabi sallallahu alayhi wasallam. allahumma salli wa sallim barik ala nabiyina muhammad. soo dhawaada
الله نحفظي أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynayaa insha Allah inaa meeshaan hada soo gaartay fiidiyowga like ta asaartay oo si share garay inta la jeceshaa khayrka subscribe kana aan ku xirtay. waan la yaabay oo la cajabay salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. waa sida kaniini xanuun baabiya ama daroogo lagu duray oo ku ilowsiinaysa xanuunkii oo dhan. waxa aad ii xanuunayay oo alam fara badan iga hayay goos. waxaan bilaabay inaan salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam aan ku tufo intaan farta saaro waliba salaatul ibraahimiya. waan ka caafimaaday daqiiqado gudahood waxaan dareemay sidii aniga oo wax xanuun ay soo marin oo kaleento. caafimaad firfircooni iyo nashaad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ee ku xiran channelkeena iyo walaalaha cusub ee nagu soo biiri doono. dhammaan walaalaha qaaliga waqtiga aan nagu bixiseen ee geliseen waan idinkaga mahadcelinayaa. jasaakumullahu khayran. ilaahay khayr iyo abaalmarintiina janno Allah ka dhigo. walaalaha culayska haysto ee markasta ducada soo dalbanayo, walaalaha xanuunsan ee ducada soo dalbanayo ugu horeeyo walaalkeen Axmed Jaabo gar madow inay tahay mareena mar walba intuu waa xanuunsanahay la soo duceeyay uu soo codsadaa. walaalkaas hal mar ducada u kulmin 40 qof ducadooda waa la aqbalaa. in ilaahay aamiinteeni aamiinta malaa'ikta kulmiyo caafimaad taama Allah siiyo walaalkaas. caafimaad daahir oo baadinan Allah siiyo. u duceeyay dhamaantiin anina waa u duceeyay si khaas si guud ahba. ilaahay dhamaan walaalaha kurbada haysto kurbada Allah ka dulqaado. inta xanuunsan Allah caafi. inta xabsida ku jirta Allah ka soo deeyo. inta guur la'aan Allah sii guur khayr qabo. inta awlaad la'aan awlaad baar Allah sii. inta xabsida ku jirta Allah xabsida ka soo deeyo. inta deemaysan deema Allah ka gudo. inta shaqo raadinaysa shaqo khayr qabta Allah siiyo. qof walba meesha ku oomay Allah ka ontiro. من آذن عن هم دمسترنين إلى وحان رمينا نو إصلاحي نو هجاجية بإذن الرحمن. عن قوة صلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله فيديو إذا لايك تسار أو ميل دير نو جارسية ونسي شير قريه ورا لها كلنتو سخير كله كلا فائدة إن شاء الله سي أو نقطة أدنى داودة أو هريو كفائدة قصص كان حسك إلهي خير كلا هلي نحي هذي إن شاء الله سبسكرايب كليغو. هذا aan guda galna qisadeena maanta ugu horeyso waa qisaska laga arkay saliga nabiga wala salaatul ibraahimiya. gabadhani waxa ay leedahay waxaan ka xanuunsanay gooskaasi waxaan bilaabay inaan ku akhriyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam wala salaatul ibraahimiyada aniga oo qaabkan u akhrinay Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيام كو العلنية أنكو أخرنية جوسكي حنونية balse waxaan arkay hada xanuunki oo hal mar iga tagay sida aniga oo daroogo ama wax kaniin xoog badan ama dawo xoog badan la isiiyo kaleento. waaba kaanama aniga oo xanuunsanin alxamdulillah waan ku caafimaaday ay leedahay. qisadan kalena waxa ay leedahay salaat ibraahimiyada ayaa waxaan akhrinayay habeenkii waan ku dhafray habeenkaasi. gabadhayda ayaa qalin oo ku socday. gabadhayda qalinkeeda dartiis ayaan u akhrisanayay balse ilaahay fadligiisa qalinkii oo gabadhayda ilaahay ugu fududeeyay iyo waxaan kale oo aan helay farxad kaleento oo ah dad ehelka oo qaraabada oo xumaan aad iyo aad u kala dhaxaysay oo kala go taagnaay oo heshiiyay oo gacmaha isgeliyay oo islaax oo dhaxdhiga ilaahay. alxamdulillah farxadaas ayaa isla subaxdii waxaan maqlay dhahaday labadaas farxadood qalinkii oo lagu guuleystay iyo ehelkii oo islaax ilaahay dhaxdhigay. qisadan kalena waxa ay leedahay waxaan ku dhaaranay Allah subhanahu wa ta'ala markii aan bilaabo akhrinta ducada istighfaarta suuratul baqara xooqalada iyo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu wax kasteento ii xalismay arrimo badan oo mustaxiil ahaay oo arrimo badan oo isaga kacakana oo mustaxiil ahaay macnaha suurtagal aanan ahayn ayaa ii xaqiiqoobay. ilaahay yaa mahad iskale fadligaas oo dhan waxaan ku helay ayuu dhahay xuska ilaahay iyo digrigiisa waliba salliga nabiga iyo istighfaarta xooqalada iyo suuratul baqara waan ku kabi jiray iyo ducada ayuu leeyahay. alxamdulillah wax yaabo badan oo culeys ahaay ayaa ilaahay fudeed iigu bedelay waxyaabo badan oo niyadeyda ay jecleed oo aan suurtagal aanan u maleyn jirin ayuu ilaahay suurtagal iiga dhigay. alxamdulillah ayuu leeyahay. kala waxa uu leeyahay qofkan waxaan jeclaystay in assalaamu calaykum waxaan jeclaystay inaan idin sheego tijaabadeedii iyo tajrubadeedii istighfaarta
si aysan yacni dadka oo kugu xiran aysan taradud iyo u sameynin yacni ka labalabeen ayna ugu degdegaan ayaan yacni aan arrintaa usoo gudbinayaa. sababta wuxuu leeyahay noloshaydu waxay noqotay istighfaarta darteeda waxay noqotay nolol sacaado iyo raaxo iyo nidaam iyo tartiib. yacni waxa uu leeyahay hamigi iyo humuumti adduunyada oo dhan ayuu ilaahay iga dulqaaday. waxaan ugu furneed ayuu leeyahay mowduucyo kala duwan iyo dhibaatooyin kala duwan ayaa i haysatay, laakiin waxaan ahay qof mu'min oo ilaahay aaminsan oo waxaan aaminsanahay 3 arrin oo ah ilaahay hadduu addoonkiisa jeclaado wuu ibtileeyaa oo ah allah idaa axabba cabdahu ibtalaah. waa kow. midda labaad oo ahayd laa yukallifu allaahu nafsan fowqa daaqatihaa. ilaahay nafta yacni ma kalifaayo waxay awoodo wax ka badan kuma kalifaayo. midda kale oo saddexaad oo aaminsanaa waxay ahayd amrul mu'min kulluhu khayr. qofka mu'minka wax kastoo ku dhaco inuu khayr u tahay unbaa aaminsanaay. marka wuxuu leeyahay qofkani si ay yacni marka intaas waa aaminsanaay, laakiin si ay kurbadayda iyo culayskayga ilaahay iiga dulqaado waxaan raadiyey xal weliba anoo xagga ilaahay u dhowaanayo oo acmaal saalix oo ilaahay ugu dhowaanayo aan samaynayo in ilaahay xalkayga yacni arrimahayga ii xalliy ayaan jeclaystay ayuu dhahay. waxaan bilaabay ayuu leeyahay inaan istighfaarsado. waxaan soo qaatay masabaxadii ama baasha lagu tasbiixsanayay. waxaan waday muddo bil ah. waxaan akhrin jiray ayuu dhahay maalintii ilaa 10 kun oo istighfaarta ah. markaan istighfaarsaday alxamdulillaah waxa uu leeyahay waxaan ogaaday arrimahaygii arrimo ka mid ah. kow, arrintii ugu horreysay oo xaalajiyadayda ama naagtii ama islaantii aan qabay inay uur leedahay. alxamdulillaah waa war aan ku farxay ayuu noqday. ilaahayaana mahad iska leh alxamdulillaah. marka wuxuu leeyahay waxaa kaleento oo aan ku helay ayuu leeyahay istighfaarta shaqo wanaagsan, faraj ayuu ilaahay igu furay, ilaahay ayaa igu galaday, awlaad ibqaar qabto ilaahay igu arsaaqay. wuxuu leeyahay mashaakilka caa'ilada ama reerka igala dhexaysa ilaahay ii xalliyey. waxa uu leeyahay nimcooyinka iyo barwaaqooyinka iyo khayraadka aan ka helay istighfaarta haddaan dhaho waan ka sheekeynayaa. waa mawjad bad yacni mawjad bad ka dhex kacday oo kaleento waa uu dhahay oo maba aha wax la soo koobi karo ama la qiyaasan karo. alxamdulillaah waxaan idinkugu soo koobayaa ayuu leeyahay hadalkayga iyo qisadeydii. istighfaarta waxay xalisay mashaakilkaygii oo dhan, kurubkii iyo kurbooyinkii adduunyada oo ay haystay ayuu dhan ayay xalisay ayuu leeyahay. alxamdulillaah ilaahay ayaa nimcadaas iskale. waxaan usoo gudbiyey ayuu leeyahay kiliibka aniga waan ogahay nimcada iyo istighfaarta laga helay, balse ay ugu dhiiradaan walaalaha ku xiran janalka ooy ugu tartamaan ooy khayrka uga faa'iidaystaan oo noloshan iyo sacaadadan iyo farxadan laga helay istighfaarta uga faa'iidaystaan darteedii ayaan idinkugu soo gudbinaya ayuu leeyahay qisadan. gabadhani waxay leedahay waxaan maqlay sheekh ka sheekeynayo faa'iidada iyo wanaagga ay leedahay istighfaarta. markii aan maqlay waxaan jeclaystay ayay dhahday inaan bilaabo inaan istighfaarsado anigoo u niyeysanayo inaan ku helo guur wanaagsan, nin wanaagsan oo xaaladeydana ay noqoto xaalad wanaagsan. waan bilaabay ayay dhahday istighfaarta. waxaan akhrin jiray ilaa 5 kun markay ugu yar tahay, ilaa 10 kunna waan gaarsiin jiray hadba sida aan u hayo jaanis. waxaan bilaabay istighfaartii oo aan waday isbuuc baba joogin ayay dhahday, isbuuc ilaa 2 isbuuc inta u dhaxayso ayaa waxaaba la soo xiriiray reerkaygii wiil qaraabada ah oo baan i doonayaba. alxamdulillaah bilo yar gudaheeda guurkeeni iyo wixii dhan ayaa ku dhacay. way guursaday, awlaad ayaan ka helay. alxamdulillaah nimcadaas iyo barwaaqadaas oo dhanna waxaan ku helay ayay leedahay istighfaarta. ilaahayna waxaan ka baryayaa gabar iyo wiil walba oo guur ka xariman inuu ilaahay siiyo guur xalaala. aan ku wada salina nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayay leedahay. allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wasallam. walaalaha qaaliga oo sharafta iyo karaamada leh aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada iyo waqtiga aad geliseen. allah idinka soo abaalmariyo, allah idinka jasa iyo khayr siiyo biidni raxmaan. aan ku dadaalno xuska iyo khayrka iyo wanaaga iyo la kacabsiga. wixii aan saxayna waxay ka ahaatay min allah, wixii aan khaldan waxay ka ahaatay nafteeda iyo shaydaan. gafkeena iyo geerideena ilaahay ma kulmiyo. toobatan nasuuxatan qabla almowt allahana siiyo. naxariista ilaahay anahana siiyo adduun iyo aakhirabo. cadaabta allah ka badbaadiyo korkeena. musiibooyinka wareega barbar allahna afkeena ugu dambeysana waxaan ilaahay weydiisanaynaa kelimada tawxiid ilaahay nagu dilo oo ah kelimada laa ilaaha illa allah wa anna muhammad rasuulullah.
خيرك وناقنا هنغسو. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مدة 12 سنة ayaan reer lahaa, wax awlaadii uurna Ilaahay uma arsaaqin, balse markaan bilaabay istighfaarta alxamdulillaah Ilaahay wuxuu igu arsaaqay awlaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada walaalaha qaaliga ee janalkeena ku xiran iyo dhammaan walaalaha cusub ee nagu soo biiri doono. Jazaakumullaahu khayran, jisadiina janna Allaah ka dhigo. Waqtiga aad soo geliseen waad ku mahadsantihiin. إن شاء الله أنقوض صلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. دمان ولا لها مراد كل مراد كله مع سلينا الله سيو. دمان ولا لها دعاء نغسو عدسدي أوه الرئيسو سليق السعيد 080 أيكسو قشا وحينا نهضي. السلام عليكم آمين أذي ولا لها يوسو دعي أولاد بارئ إلهي وحنقو برينا أولاد بارئ والصالحين وعاف ما ذهب إلهي نقبت أصو صارو درية صالحا إلهي سيو آمين. أذين كان أسود دعية ولا شاس دعاء نقص عطتي بإذن الرحمن يدما ولا لها كلا أولاد رادسك إلهي أولاد باريال وصالحين هكو أرساق دمان توضبا انت هيستنا الله وبركي وعاف ما تام الله سيو. تقول الآن ولا لها قول الآن تأقول حلال وخير قبل الله سيو. انت ديمي سنديمها الله كقدو. انت حبسيدك وجرت الله كسود ديو. انت شق الرادس شق خير قبل الله سيو. inta sharciyada ay kasoo daaheen oo culeysada haystaan Allah sharciyadooda si fudud oo sahlan ha ku siiyo. Inta awlaada gaalada ay ku haysatana Allah ka sii jeedi gaalada iyo shartooda shar walbaba. Meel kasto aan ka qurbeysanna Allah naga fiido qurbada. farxad Allah noogu bedel biidni raxmaan. aamiin teeni aamiinta malaa'igta Allah kulmiyo. arladan ka duceynay samada Allah ka aqbalo. waqtadeena iyo baahideena bini aadanka Ilaahay ma tusiyo oo gacanteena tii sareysa Allah ka yeelo biidni raxmaan. اللهم آمين. سو دواد ولا لها قالقة وقصصكي لغاركي حسكالي استغفار تحوق على صلي النبي. سورة البقرة صلاة إبراهيمية إيو لما نحسك إلهي نوع والبقوء هذا. وأنا قصص أسكو حسوسينين مروى البنت خيرك إيو وناقة إن شاء الله مركز تنتو عن حسك إلهي بذنو حلق عن دباتي سنة كليه ينصو عران حق على مركان برواقي سنة هيني aan ku dadaalna khayrkaas Ilaahay noogu dawaamo oo noogu joogteeyo. mar walbana ducadeena Ilaahay si uu aqbalo aan mar walba ku darno saliga nabiga inaan ka hormarino kana gadaal marino iyo inaan labada waalid loo duceeyo. asbaabaha ducada lagu aqbalo ayay kamid tahay. qisadani u horeyso gabadhani waxa ay leedahay waxaan la xanuunsanaan jiray xanuunka la yiraahdo gastriga. badan ayaan la xanuunsanaa ay dhahday gastriga. kiniiniyaal ayaan qaadan jiray wax yar waa xanuun baabiyo waa ugu soo noqon jiray mar walba intaba oo ma aha wax iga suulay. balse maalin maalmaha kamid ah aadayaan xanuunsada oo gaaska ay igu kacay. waxaan soo qaatay galaas waxaan ku tuftay galaas biyo ku jira ayaan soo qaatay waxaan ku tufay saliga oo Ibraahimiye waliba. alxamdulillaah waan tijaabiyay dhowr bari kadib ayaan tijaabiyay waxyaabihii gaaska uu kicinayo dhan isticmaalay. alxamdulillaah gaaskii uma soo noqonin ayay leedahay. fadligaas iyo nimcadaasna waxaan ku helay saliga nabiga waliba salaatul ibraahimiya. hadda isweydiinaysa qaabka loo akhriyo saliga nabiga waliba ibraahimiyada waxa waaye اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. qaabka ay u akhrinaysa saliga nabiga waliba ibraahimiyada oo ah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا waxa ka sheekeynayso gabar waxa ay ayadii istighfaarta wixii dhaxmaray ay ka sheekeynaysaa. waxa ay leedahay waxaan reer lahaay oo li qabay muddo 12 sano ah. wax uuri awlaadna Ilaahay uma arsaaqin. dhakhaatiir fara badan waan tagay. dhakhtar saa isaga daba wareeganay dal iyo dibadba lacagtii way iga dhamaatay iyo waqtigiiba. alxamdulillaah dhaga hadal iyo xumaan fara badan waa la ii geystay oo dadkii iyo bi'adii aan la noolay aad ay hadalka igu dhibaateen jireen. markii dambe waxaan maqlay ay dhahday fawaa'ida laga sheegayo istighfaarta iyo xooqalada. waxaan bilaabay ay dhahday inaan istighfaarsado oo xooqaladana ku daro laa hawla walaa quwwata illaa billaah
iyo siiqada gaaban astaghfirullah inaan u istighfaarsado. Alxamdulillaah muddo 12 sano kadib Ilaahay wuxuu igu arsaaqay awlaad. Alxamdulillaah nimcadaas oo dhan waxay aan ku helay iyo fadligaas iyo barwaaqadaas ayay leedahay istighfaarta. qisadan kalena waxay leedahay waxaan akhrisan jiray inaan xilliga suxuurta ama xilliga suxuurta oo hal saac ka hor salaada subax ayaan waxaan akhrisan jiray 1000 mar oo istighfaar ah. Ilaahay wuxuu ii furay albaabada irsaaqada. Alxamdulillaah waxaana ka mid noqday dadka qaniyaasha ah oo hantiilayaasha ah. nimcadaas iyo fadligaas iyo barwaaqadaasna waxaan ku gaaray istighfaarta kaliya aan ku akhrin jiray 1000 bis ayaan akhrin jiray xilliga salaada subax hal saac ka hor ama xilliga suxuurta qof walba sidoo u yaqaano. kalena waxa uu ka sheekeynaya qofkan istighfaarta iyo asaga wixii dhexmaray. waxa uu leeyahay waxaan dareemayay culays hammi iyo kurbo fara badan. noloshana waxay igu ahayd mid cakiran oo xoolo la'aan, guur la'aan, faqri iyo dhib fara badan ayaa i haystay. kadib waxaan arkay uu dhahay oon ka fiirsaday YouTube-ka istighfaarta iyo faa'iidadeeda. kadib waxaan bilaabay ayuu leeyahay inaan akhriyo istighfaarta oo aan dhaho qaabkan aan dhaho astaghfirullah alladhi laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyum wa atuubu ilayh. qaabkaas ayaan ku celcelinayay ayuu dhahay. waxa uu yiri maba wadinbo muddo 2 isbuuc ah una ka soo wareegatay akhrinteedii istighfaarta aan joogteynay. alxamdulillaah wuxuu dhahay culayskii iyo murugadii iyo walwalkii farada badnaa horta wuu iga dagay. kurbadii i haysatay way iga dagtay. alxamdulillaah waxaan codsaday oon sii fiigeystay shaqo. Ilaahay wuu ii sahlay. alxamdulillaah noloshayda oo dhan way isbedeshay oo sida wanaagsan iyo dhanka wanaagsan ayay u isku bedeshay. shayga ugu wanaagsan oo aan helayna waxay ahayd xasilooni. alxamdulillaah waxa uu leeyahay assalaamu calaykum. waxaan jeclaystay inaan idinkaga sheekeeyo qisadayda quruxda badan ee dhex martay ani istighfaarta. istighfaarta wuxuu leeyahay waa nolol farxadeed, raaxo, riyooyin fara badanna waa ii rumaysay. waxaan dhihi jiray ayuu dhahay istighfaarta 11,000 ayaan maalintii dhihi jiray. ugu yaraan maalintaana waxba akhrinaynin waxaan akhrin jiray ayuu dhahay ilaa 5,000. waxaan arkay ayuu dhahay riyooyinkeygii oo ii xaqiiqoobaya, arrimaheygii dhan oo shakli iyo qaab weyn isku bedelay oo dhanka kale isku bedelay oo dhanka wanaagsan isku bedelay. 2 bilood gudaheeda waxaan ku guursaday ayuu dhahay gabar. alxamdulillaah waxaan awlaad ayaa uur ii gashay. alxamdulillaah wuxuu leeyahay maajisteerkii aan qaadanayay maajisteer aan rabay inaan qaato oo waxaa mushrifkeyga ayaa culays iyo iska dab wareejin iyo waxaas igu hayay. Ilaahay wuu igu sahlay. wuxuu kaleento uu dhahay alxamdulillaah wuxuu dhahay fudeed ayaan dareemay oo ani ahaantayda in culeysyadii farada badnaay, kurbadii adduunyada igu haysay, waxaasoo dhan ayaa iga kala yaraaday ayuu leeyahay. marka istighfaarta waa nimco iyo fadli iyo dheeraad oo Ilaahay noogu deeqay oo nagu galaday. الله سبحانه وتعالى وحوليه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا إلى آخر آيات. الله سبحانه وتعالى وحوليه مركات استغفارتان وأن إذين دنب دافايا awlaada, maalka, xoolaha, hantida, beeraha, wabiyada, nimcooyinka dhan oo Ilaahay nagu soo farqaya marka aan istighfaarta joogteyno. Ilaahay minal mustaghfiriin naga mid dhigo, kuwii loo dambi dhaafo Allaha naga dhigo, dambigeena kii hore kii dambe mid yar iyo mid weyn ba Allaha noo dhaafo, mida ognahay mida ogeyn ba Allaha noo dhaafo dunuubteena. walaalay qisadeeda intaas qisooyinka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa maanta biidni raxmaan. أشكر دعينا ملك استوجبنا خيرك الله نوتام يلو الله نوافجيه من يريد الله خير يفقهه في الدين. قف كست خيرك اسكما جعلان كرو إلى يكون خيرك جعل أو رحمه
وخير كل حجر الله نجدقه شرط الشيطان الله نهرين مريو حق الله نقصه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا حق حقا وارزقنا الاتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا لا قال aan badina saliga nabi sallallahu alayhi wasallam aan isku soo duceeyna meel kasto joogna muraadkeena muraadka muslimiinta Allah aqbalo Allah fududeeyo waalidiinteena Allah u naxariisto intii noolna Allah sii cimri caafimaad baraka iyo cibaado soo intii dhimatayna qabrigooda roodata min riyaadil janna Allah uga dhigo waan salaamaya insha Allah video ina like saarto warjeena una sii share gareys walaalaha kaleento wixii ra'yiga commentiga noogu soo reeb insha Allah gambaleelkana ku xiro والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله والسلام عليكم أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه